السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena BMA Production. maanta muuqaalka waxaad ku baran doontaan sida wifi-ga aad isticmaalayso sidee loo ogaada passwordka ku xiran. hadoo kale waxaad isticmaalaysaa saaxiibka wireless-kiisa mise wireless-kaaga ayaad isticmaalaysaa kadib waxaad ilowdo kale passwordkaaga ayaad ilowday waxaad rabtaa inaad ogaato passwordkaaga. marka dhowr qaabood ayaa jirto oo lagu ogaan karo, laakiin qaabka ugu fudud ee aad ku ogaan karto ayaa waxaan kugu tusi doonaa computerka ama laptopka. haddii aad telephone isticmaalayso way adag tahay in la ogaado wifi-ga passwordkiisa. waa ina shuruudo waxaa kamid ah waxaa lagu xiraa shuruud ah in aad root gareyso telefonkaaga. haddii aadan root gareyn mataqaana ma ogaan kartid, suurtagalna ma noqonayso inaad ogaato wireless-ka passwordkiisa. marka waa inaad root gareysaa kadib sidaas ayaad ku ogaan kartaa. marka kugulama talinayo in aad root gareyso telefonkaaga, waayo waxaan ogahay waxyaalo badan inuu telefonka dhibaatooyin u keenayo. marka waxaan ku dhiilahay iska dhaaf computer base iska isticmaal ama laptop. marka daawasho wacan yaan hadal badan idinkugu daalin. marka hore waxaad aadaysaa haddii aad isticmaalayso Windows 7 8 meeshan hoos wireless-ka ayaad imaanaysaa. waxaad sameynaysaa right click ayaad leedahay, open network meesha ku qorantahay ayaad taabanaysaa. Windows 7 toos ayuu kuu geynayaa qaybtan wireless-ka, marka laakiin Windows 10 qaybtan ayuu ku keenayaa. marka waxaad sameynaysaa intaan Windows 7 horta lama gaarin, laakiin Windows 7 wuxuu ku soo saarayaa sugada ayaan arkaynaa change adapter options. meeshan ayaan ku dhufanayna Windows 10 haddii aad isticmaalayso. marka ku dhufato wuxuu ku keenayaa qaybtan ayuu ku keenayaa. isla waa isku midkii Windows 7 iyo 10 qaybtan isku midkii ay ka yihiin. marka qaybtan wireless-ka uu ku xiran yahay aad taabanaysaa wifi meesha ku qoran tahay, double click ayaad leedahay. marka dhacdo waxaan ay ku soo qabanaya. marka waxaad sameynaysaa wireless properties ayaad taabanaysaa. marka taabato mid kale ayuu haddana ku soo qabanaya. haddana waxaad kasii dooranaysaa security. marka taabato waa kana. marka inta ayaan u baahanahay. marka waxaad inta ayaad ku ogaan kartaa network security key meesha ku qoranta meeshan show characters meesha ku qoranta ayaad tick saaraysaa. marka tick saarto permission ayuu ku weydiinaya, yes ayaad leedahay. kadib waa kana passwordkii oo ku xiran wifi-ga waa kana. marka inta ayaad ku ogaanaysaa. marka waa kana passwordka ku xiran wireless-ka. haddii aad si qaldan u isticmaasho aniga mas-uuliyadeedan ma qaadi doono. aniga dhanka wanaaga ayaan rabaa inaad u isticmaasho, laakiin dhanka xumaanta adiga ayay dembigeeda ku saaran tahay.